muddo 19 sano kadib oo ay dhisnayd Puntland ayaa markii ugu horeysay waxaa laga daahfuray magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka xafiis ay yeelanayaan jaaliyadda Puntland ee ku nool gudaha dalka Mareykanka iyo Canada. xafiiskan ayaa waxaa laga codsaday madaxweynaha Puntland mar uu booqasho ku yimi magaalada Minneapolis. haddaba hirgelintiisii ayaa hadda soo dhammaatay waxaana la soo magacaabay Mulki Cabdisamed Xaaji Xuseen oo ka mid ah gabdhaha jaaliyadda Puntland isla markaana ah hormuudka gabdhaha Soomaaliyeed ee gobolka laga yaqaano. haddaba xafiiska daahfurkiisii ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah jaaliyadda Puntland isla markaana ka soo jeediyay hadallo kooban oo ku aadan xafiiskan iyo baahida loo qabay waxaana ka mid ahaa sida tan. waxaan ugu mahadnaqaynaa xuska ayna xustay mulki in fact aad iyo aad bay u dadaashay muddo fara badan bay halgamaysay marka annaga haddaanu nahay Puntland Diaspora Forum dadkii ugu horreeyay taageeray baanu nahay anigoo magaca Puntland Diaspora Forum hogaamiyihii halkan Minnesota ah waa kula soconnaa mulki we are with you not against you. ilaahay waxaan ka rajaynayaa xafiiska inuu noqdo kiina anfaca waxa nagu soo saacidiya maaragtay dadka reer Puntland meel kasta ay joogaan isu keena xiriiriya danahooda kuwii ka wada tashada oo maaragtay inta isugu yimaada ka wada tashada ilaahay inuu ka dhigo xafiis loo baahnaa oo ururiye ah oo aynu leenahay oo danaheena ku qabsanno dibad iyo gudaba weeye gabadha aynu haatan caleema saarayno inagu halka kana galabta waa gabadh ku habboon. aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida sharafta leh aad u soo sharafteen xafiiskeena hawl loo baahnaa buu ahaa hawl in badan loo hanqal taagayay bay ahayd akhiirana timid biidmillaahi kariim in uu noqdo kii ina ururin lahaaye kala daadsanaanta iyo qurba joogta hawsheeda soo dabartiri lahaa. waxaan hadda ka markhaanti kacaya waqti aan dhoweyn oo dhowr sano ka soo wareegtay halgankaa mulki cabdisamed waa ay ku jidhay xafladay noogu dhigta waa isugu kaa yeedhay yacni mar dambe haddana waa la soo kiciyey habda wax la soo kiciyaba waa ku guulaysatee allaha guuleeyo xafiiska Puntland. waxaa sharaf weyn oo ah in loo magacaabay gabar aqoon-yahanada oo karti iyo hufnaan u leh khibradna u leh hawshan. ilaahay waxaa uga rajaynayaa mulki inuu ilaahay xilka u fududeeyo oo ilaahay subxaana watacaala annagana noo khasbo kuwa la shaqeeya naga dhigo. anigu waxaan islahaaba guddoomiyaha maba soo dhaafayo nimanka oo wiilasha iska laalaadin doona. waa mahadsantiin ilaahay hadduu idin soo dhaafiyey hawl gooni gabdhahana u taala reer Puntland waa inaan mulki la shaqeynaa kulligan garab istaagnaa insha Allah. Puntland sidaan ognahayba halgan badan bay u soo gashay ururinta Soomaalida marka waxaan qabaa xafiiskan horta inuu Soomaalida oo dhan xafiis u noqon doono aanina marti ku noqon doonin. anigu sida kulli dadku intiisa badan og tahay Puntland laba soo shaqeyn wax badan hawlo badan baa soo maray laakiin hawlihii aan soo maray wax ay socdaanba meel aan rabin bay salka saareen waxa la igu yiri Soomaaliland la wada leeyahay ba arrintii ku dhamaanaysaa arrintii anigu waxa waan fakiray hadda in la isku filan baan aqliga ka shaqaysiin kara moogta waxa wanayo Soomaaliland la wada leeyahay waxa ka dhow Puntland la wada leeyahay horta go'aankaas aan qaatay anigu. maantay waa maalin farxadeed kulli meeshan office-kan wuu soo daahay run ahaantii maantay jaaliyadda Puntland in loo furo office ee walaasheen mulki madax ka tahay anigu aad baan ugu faraxsanahay waan soo dhaweynayaa garabkeedaan taagana waan la shaqeynayaa. mulki waa madaxdeenni waa guddoomiyaheennii annagaa dooranay gudaha laga soo doortay dibadda laga soo doortay inaan wada taageero oo la shaqeyno oo dadkeenna gaarsiino kuwa tuulooyinka degan iyo kuwa degmooyinka degan iyo kuwa gobollada degan waa waajib annagoo dhan wada saaran waay. anigu shakhsiyan awalba mulki oo wada shaqaynteedina hadda way sii laba jibaarmaysaa dadaalkii waan la sii shaqayn doonaa idinkana sidii dadkii hel sharafka iga horreeyay idinka codsadeen waxaan codsanayaa inaan gabadha mulkiga walaasheen
la shaqayno oo garab u noqono. waa mahadsantihiin aad baa u mahadsantihiin wax horta wax badan ma sheegi lahayn laakiin waxaan rabaa inaan u mahad celiyo mulki cabdisamed xaaji xuseen iyo dadaalkeeda iyo dadka ka soo qayb galayo ajiibay maxaa lahaa shirkan waa mahadsantihiin mulki aan ku soo dhaweynaya xafiisku markii la furo wuxuu u furmayaa marka hore bulshada iyo xiriirka dalkan iyo dalkaas buu u furmayaa markii dadku la isku xirayo ama dawlad la isku xirayo waxaa imaanaysa dad kala maqnaa ama dawlado aan is aqoonin iyo xiriir aan jirin inuu soo baxo wuxuu u baahan yahay wixii idinka la idin qabanayo inaad dadkiina aad ku qabsataan laakiin haddii la yidhaahdo xafiis oo Puntland ay leedahay dee xafiiska Puntland way ku filan tahay laakiin waxaa loo baahan yahay bulshadii waxay u qabanaysay haddii la yidhaahdo maanta waxbaa la qabanayaa dee Puntland wax walba oo iyadu ay ma aragtay ay tiraahdo bulshadan halkan joogto waa loo qabanayaa dabcan bulshadeedii waxay u baahan tahay inay waxeeda qabsato dadka xafiiskan ka midka ah waxay noqon doonaan ugu badnaan doonaan dhalinyarada waddankan jooga dhalinyarada wax ka baratay waddankan ku dhalatay ama ku dhalan kartay ama iyagoo yar yimid in ay bartaan waddankooda ayna bartaan inay waddankooda wax u qabtaan qabiilka laga tago qaybsanaanta laga tago yuu yahay iyo tahay ee aan u dhaqaaqno muxuu qaban karaa maxaan qaban karnaa maxaan wada qabsan karnaa mahad celin kadib ayaa dadkii goobta isugu yimi waxa ay ugu baaqeen Soomaalida ku nool gobolka Minnesota iyagana inay gacmo furan ku soo dhaweynayaan wixii baahiyaa ay qabaan inay xafiiskan kala soo xiriiri karaan wax allaale iyo waxay u baahan yihiin xafiiskan ayaa waxyaabaha uu qaban doona waxa ka mid ah taageerada dhinaca waxbarashada caafimaadka dhammaan adeegyada bulshada qof kasta oo Puntland ah oo ka yimaada gudaha ama dibadda xafiiskan waa uu u furan yahay inuu soo booqdo isla markaana lagu soo dhaweeyo Awil Nuur Shire telefishinka dawladda Puntland dalka Mareykanka